ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee 5 sano la soo dhaafay madaxweyne Farmaajo uu dhisayay ayaa waxay ka gaareen guulo la yaab leh dagaalka loola jiro Al-Shabaab iyo deegaano muhiim ah ka qabsadeen 15 sano kadib Al-Shabaab oo u muuqata in la soo gaaray dhamaadkooda culimo waaweyn oo ka mid ah Sheekh Aadan Sunni oo qorsheynaya inay isku soo dhiibaan kadib markii deegaan ay ku sugnaayeen la hereerayay ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa dabarjabin ku sameeyay damul jadiid oo doonayay guulaha inay sheegtaan haddaba ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxa uu diray madaxweynihii hore fariin ay sheegeen inay dalka qabteen ciidan askari oo $100 qaadanayo haddaba waxa baraha ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud oo ku jiri askarigii aan qaadanin $100 haddaba waxa iskaga baxo xilka waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa xaguhii ugu dambeeyay iyo saraakiil sare sidoo kale rag waaweyn oo ka mid ah Sheekh Aadan Sunni oo dhawaan ku biiray kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kalena kana soo guuray magaalada Hargeysa ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa haddaba daawada haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka Maqal Tube soo booqato subscribe sar sidoo kalena video like sar si aad ugu heshid muuqaalada barta mar walba aan soo gelino mahadsanid ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadeen xilligan 2022 xilligii tababarkii sidoo kale tayeenta wadanka si kastaba ha ahaatee waxaa soo ifbaxday natiijadii madaxweyne Farmaajo uu galiyay ciidamada qalabka sida ee militariga uu galiyay 5 sano la soo dhaafayay si kastaba ha ahaatee taasi waxaa looga marmay ciidamada hadda dalkan hayo oo uu joogo ka dalkaliya wadanka dhaqaale madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu soo saaray ciidamo natiijo fiican leh sidoo kale uu soo afbixiyay military wadankaasi dadka shacabka wax u qabteen oo la soo gaaray xilligii wadanka ay wax u qaban lahaayeen ciidamada militariga Soomaaliya ayaa guud ahaan waxay xoreeyeen gobolka Hiiraan sidoo kalena bartamaha Soomaaliya iyadoo la sheegay galbeedka Hiiraan ee xilligan hadaba Al-Shabaab ay u carareen sidoo kalena ciidamada halkaasi uga daba tagi doonaan militariga dalka Soomaaliya ayaa bogaadinaya sidoo kalena niyad wanaag u diray madaxweynihii hore xilka hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan xilka wadanka inay qabteen ciidamada militariga ee Soomaaliya madaxweynaha haatan xilka hayo Damudajid Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku yiri hadii aadan $100 qaadanaynin hadaba xilka iska waxaana ceebtaas iyo wajagabaxaas ciidamada ka maray madaxweyne Farmaajo oo u diray tababar caalami ah wadamada kala duwan Uganda Eritrea sidoo kalena Turkiya madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu soo saaray ciidamo tababar caalami la siiyay sidoo kalena maanta ka qayb qaadanayo dib u habeynta qarankeena ciidanka ayaa hambalyo iyo bogaadin ugu diray madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisa geliyay ciidamada militariga oo haatan qalabka sida sheegashada kooxda Damudajid ayaa waxay ku soo dhamaatay fashil iyo quuso kadib markii bogaadiyeen ciidamada qalabka sida madaxweyne Farmaajo sidoo kale ciidamada ayaa hareeray deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan kaasoo uu ku sugnaa Sheekh Aadan Sunni iyo waliba culimo waaweyn Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame Sheekh Aadan oo kordhow ku biiray kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa wuxuu qorsheynayay una la soo hadlay militariga Soomaaliya inuu isku soo dhiibi doono kooxda ciidanka dalka Soomaaliyeed sidoo kalena uu iska dhaafi doono dagaalamayaasha Al-Shabaab Sheekh Aadan Sunni oo qorsheynayo militariga Soomaaliya inuu isku soo dhiibo sidoo kalena uu ku andacoonayay inuu ku biiray kordhow sidoo kalena wax gagal u gelsanin si kastaba ha ahaatee muuqaalka waxaa idin tabinaya anigoo Zahaboy halka ka daawaneysana waa Maqal Tube sidoo kale haddii ay tahay markii kugu horeysay aad channelkan soo booqato subscribe sar oo nagu soo biir si aad u heshid muuqaalada barta mar walba aan soo gelino sidoo kale video like garee sidoo kale share garee si dad badan u gaaro like-tana ka iloobin mar walba like-ta dhiirigelin ayayna tahay mahadsanid intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa anigoo Zahaboy idinka tagayo sidaas iyo nabadgelyo.